nadaafadda lagu sameynayo guriga dowladda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Brussel ee wadanka Belgium ayaa waxaa ka qayb qaadanayay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool wadanka Netherlands gaar ahaan magaalada Breda si mutadawacnimo isku soo xilqaamay isla markaasna hawshan fulinayay ayagoo ugu baaqay Soomaalida kale ee ku nool wadamadan Benelux gaar ahaan wadanka Holland, Belgium iyo Luxembourg inay ayaguna ka qayb qaataan nadaafadda gurigan oo markaasi ay ka baxeen geedo waaweyn isla markaasna qashin uu buuxo ayadoo gurigaan ay degnaayeen dad aan Soomaali ahayn oo kadibna laga saaray waxaana hadda lagu soo wareejiyay dowladda Soomaaliya qaar ka mid ah dadkii nadaafadda ka qayb qaadanaya oo soo xilqaamay ayaa waxa ay yiraahdeen anaka waxaan soo gaaray baaq ka yimid safaaradda Soomaalida ee Brussel oo ku wajahnaa jaariyadaha Netherlands oo idil waxaan jaariyadda ugu horeysay oo baaqaas ka jawaabtay awoodeena way yar tahay waxaan jaariyadda Breda kaliya wax ka gashan ma ahan laakiin waxaan keenay xoog waxaan jecel lahay inaan xoog iyo xoolaha uga qayb qaadano inaan dhulkaaleeti ku samata bixino dhibaatada uu ku sugan yahay aan ka saarno Soomaaliya gurigaan la qaadan rabo ee dowladda Belgium ee qaadan rabto ha loo soo gurmado annaga ka dhalinyaro ahaan gudoomiyaha dhalinyarada Breda maadaama ahay maanta waxaan u soo gurmanay annaga barnaamijkaas in aan u qabano waqtiga aan nasan lahayn si wadaninimo iyo Soomaalinimo ay ku jirto si gurigaas aysan gaalo ees u qaadan waxaan u soo diidinayaa dhammaan jaaliyadaha midowga Yurub ku nool in arrinta ku istaagaan sidii wax ugu qaban lahaayeen hatta مثلا جرمك وكذا Soomaalida kuna in safaaradooda u istaagto Faransiga u istaagto Belgium jaaliyada kuna u istaagto meelaha safaaradaha ku nool yihiin annaga Netherlands haddii aad u gacan ka geysan meel kasta oo guri ku yaalo contribution ama Firka Soomaaliya u fadhiya wadamada Benelux iyo midowga Yurub Dr. Ali Saciid Faqi oo asna goobta tagay isla markaasna ka hadlay ayaa waxa ugu baaqay Soomaalida oo ku nool wadamadan Benelux inay ka qayb qaataan qurxinta dayactirka iyo waliba nadiifinta gurigaan oo muddo fara badan ay degnaayeen family maaragtay Belgium reer Belgium ayaan sanadkii 2015 ka 2015 ka erinay ka saarnay meesha markaas ayuu gacanta dowladda Soomaaliyeed soo galay ilaa haddeerta wax laga qabtay male dhowr mar ayaan maaragtay isku dayay in arrinta guriga kan wax laga qabto hadda xaafadda uu ku yaalo magaalada Brussel kaga yaalo ayaa mayorkii iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay yiraahdeen arrintan waa arrin halis ah waayo meesha waxaa soo gala dad maarkino oo dadka yiraahdo guri la'aanta ah homeless ayaa meeshan seexdo iyo dad xataa maaragtay ku iibin kara drug iyo waxsaasa marka dadka deriska ayaa wax badan soo qayniyay oo yiraahdeen maaragtay gurigaan waa in wax laga qabtaa arrintaa waxaa soo dhex gashay wasaaradda arrimaha dibadda sida aan hore soo sheegay iyo degmada mayorka degmada taa oo nagu yiraahdeen in maaragtay aad wax ka qabataan maanta waa maalintii ugu horeysay intii yarta aan qaban karno horta waxaan nidhi maaragtay bilicda guriga soo galitaankiisa meesha geedaha ay ku baxeen oo dadka baskiilada ku wataan inaan marka hore nadiifino kadibna sitimaan kasto maaragtay gurigaan dad Soomaali ay yimaadaan dhalinyaro Soomaali ay yimaadaan geedaha ka jiraan kadibna lacag loo raadiyo sidii loo dhisi lahaa Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro warbaahinta qaranka magaalada Brussel wadanka Belgium